tan iyo markii doorasho beenaadkii uu Kismaayo waxa ku xoogay ilaa maanta shaqar waa laga laa shalay buu nafisay oo isir hadal shalayna wuxuu kala dhacay meel aan munaasib ku ahayn dhagaha dadka inay maqlaan odagu wuxuu qirtay si kooban markaan idinkugu soo koobo warka si wuxuu qirtay oo fagaaraha ka qirtay inuu fashilmay wuxuu kaloo qirtay in dadka Soomaaliyeed ee Kismaayo ku nool madax furasho uu haysto oo xayndaabkiisa isaga fala ku wareegay inay yihiin warkiisa nuxurka markaad akhrisid dhageysato iyo asaga muuqaalkiisa waxaas ku soo baxay wuxuu aad u eedeeyay dawladda federaalka iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo Amnesty International wuxuu qirtay shalay inuu haysto fursad uu ku fakan karo ku baxsad meel uu ku fakan karo arinta diyaaradaha iyo cunaqabataynta iyo waxaan marka uu aad uga cataabay odagu isaga shakhsiyan laakiin wuxuu shalay cadeeyay inuu haysto meel uu ku fakan karo waa un catow wuxuu sameeyay handadaad ayuu wuxuu u soo jeediyay weligiisba handadaada iyo dilka iyo xaalufinta dhirka iyo qabiilaynta iyo iska horkeenida dadka uu ku suntanaa staanta uu lahaa laakiin shalay xogaa dheeraada buu ku daray in haddeertaan dad Soomaaliyeed oo qaarkood ay Kismaayo joogaan qaarna ay ka maqan yihiin uu u handaday inuu tilaabo qaadi doono inta kadib wuxuu si fiican oo qoto dheer uga hadlay processkii dib u heshiisiinta iyo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii ka dhacay iyo inay jireen dad Soomaaliyeed oo samatalisa oo dib u heshiisiinta ka shaqeynay odaga waxaan jeclaa inaan weydiiyo labada kooxood kooxda fidnada iyo qabyaaladda iyo dilka iyo xaqiraada dalka ku suntanayd iyo kuwa samaha ka talinay isagu waa labada safe safkeeb ku jira Sheekh Axmed safkeed ku jirta adu wuxuu kaloo eedayn kulul u jeediyay dawladda federaalka anaga ururka iyagu golaha iyaga dawladda federaalka kama tirsanin waxaan nahay urur madax bannaan golo madax bannaan oo odayaasha dhaqanka iyo deegaanka reer Jubbaland ay si sharci ah u doorteen oo u ansixsadeen ujeedooyinka iyo falsafada loo dhisay caddahay dawladda ayada leh afayeenadooda iyo mikrofoonada waaweyn iyo cidii maagtay cidda ismaagaan waa hawl ayada u taalo annaga uma hadalno laakiin si guud waxaan dhihi karnaa oo maragma doonta dawladda federaalka waa la wada leeyahay Soomaaliya oo dhan baa dib u heshiisiin samaysay waxba la isku darsaday waa lagu heshiiyay hadba cid baa hoggaanka qabata cid kasta oo Soomaaliya hoggaanka dawladda federaalka loo dhiibo ama kuwa hore u soo hayay ha noqoto oo anigu baan kamid ahaa ama kuwa maanta jooga ha noqdaan ama kuwa berri imaanaya wax saxan oo fiicanna way sameynayaan wax khaldanna way sameynayaan oo lama celin karo dadka waxa la gudboon marka in wixii saxanna gacan la isku siiyo wixii khaldanna la iska qabto taasna anagu waa u taaganahay waligay khaladna kama aamusin wax saxanna inaan niyadda u dhisno garab istaagno ururka iyaga dhaqankiisa ay kamid tahay laakiin Sheekh Axmed asagu ma aha qofkii arrinkaas ka hadlay maanta laano wuxuu si fiican uga hadlay odagu dhismaha Jubbaland oo yiri process xalaalaha lagu dhisay waa la isdoortay dadka deegaanka ka heshiiyay war undee markii aad qofkii dhageysta oo aad uga xishoonayo waxaan jeclaan lahaa Sheekh Axmedow bal adigu muraayada isku fiiri baarlamaanka ku samaysan waa noocee golaha wasiirada ee ku dhisnaa hadda waxba ma jiraan 15 August baa kugu dambeysay sharci darra tahay Kismaayo isaga nooshay laakiin waagii wuxuu aad wadwaday dadka deegaankuna ay xishoonayeen golaha wasiirada ee ku dhisnaa maxay ahaayeen ciidamada xuduudaha jooga difaacaya waxaan ogaaday anigu Soomaaliya oo dhan bay ka sameeysan yihiin laakiin saraakiish iyo dadka xukuma ciidanka maxay yihiin shaqaalaha dawladda ee Jubbaland jooga maxay yihiin yaa iskale baa adiga aragtidaada bal muraayada isku fiiri waxa aad ku fadhida iyo nidaamka aad sheeganaysana dib u milicso dadka deegaanka oo ragani ay matalayaan iyo gabdha iyo rag kale oo hadeertaan intaan waa gudi kooban oo loo soo saaray gudi kamida iyo Soomaalida deegaankaas degan oo dhan oo kiyaale kale intaad gashato bal ku eeg adiga dadka aad baarlamaanka kuwa iyo xukuumadda iyo sistamka Jubba kaaga dhisan ee aad sheegtay in sax uu dhismay in la isku heshiiyay in waxaas aad akhriday waxay la tahay jawaabteeda ma mudna in la faahfaahiyo
way ka jawaaban tahay waxaana ka jawaabaya baarlamaankaaga xukuumadda systemka aad ku shaqaynayso iyo wax alla waxa meesha ka jiro dhan ayaa ku filan inay jawaabtahay si cad u dhiibaan qofna uma baahna inuu wax faahfaahiyo way faahfaahsan tahay marka sidaas darteed waxay wanaagsanaan lahayd inuu ka xishoodo meelaha qaar uu safagaara la soo istaagin oo dhihin Jubbaland baa lagu heshiiyay iyo waxba dhisan iyo wax Jubbaland la yiraahdo dhisan oo lagu heshiiyay ma jiro odagu asaga sheegay asagoo qori wato oo meyd wato soo galay ilaa ay haddana meydka iyo qorigiibu dabada hayaa waxa inta dhaafsiisan iyo reer hebel baale iyo cagajugleen handadaad waxa inta dhaafsiisan oo kismaayo yaala qofka ii keena waan la challenge gareynayaa handadaadaha laba hadal oo yaab leh buu sheegay mid waxay ahayd shirkan jiraa'id midka ka dambeeya hadday wax isbedel waayaan wax kala dhici doona midna wuxuu yiri madaxweynayaal iyo dad wax kala sheeganaya ma ogoli tilaabaan qaadaya waa war culus weey waxaan rabnaa inuu odagu ogaado san ka ilduufin sidaas kaamiradu ay u hayso ayaa isaguna meel walba kaamiradu u haysaa qofka Kismaayo jooga hadday qodax muddo oo uu dhiig yar ka imaado isaga ka mas'uula waa nin sharci darro meesha ku jooga oo Malaysia iyo xoog ku haysta indhuhuna ay hayaan waxa la wixii meeshaas qajafti ka yeedho shanqadha mas'uuliyadeeda isaga weey handadaad cadna wuu ku daray oo maragma doonta codkiisa iyo maqalay muuqaalba duuban oo haynaa haddii meeshaas wax ka dhacaan annaguna waxa noo diyaarsan sharciga iyo nidaamka dad badan oo reer Soomaaliyeed oo reer Jubbalandana hawlaha way ku mashquulsan yihiin sidii dambiyadaas looga daba tagi lahaa laakiin si kooban waxaan rabaa inaan shirkan jiraa'id ee golaha iyaga midnimada iyo badbaadada Jubbaland aan kaga hadlayno aan iraahno meeshaas waxa jooga nin isagu isqeexay shalay waxa uu u taagan yahay iyo waxa uu yahay waxaan u sheegaynaa rabaa inaan halkan kala hadlo dhammaan shacabka reer Jubbaland dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaan rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel caamo iyo culumo waxaan idinka codsanayaa inaad garbaha isqabsataan in midnimada iyo wadajirka reer Jubbaland laga shaqeeyo meeshaas Jubbaland la yiraahdo Soomaaliya oo dhan baa degan waan ku celcelinaynaa markastana carabkaygu kama daalay inaan iraahno waa Jubbaland waa Soomaaliya oo la soo yareeyay way dadkii oo dhan baa wada degan wada lahaansho iyo dib u heshiisiin iyo midayn iyo horumar ayay u baahan tahay uma baahna qoqobid isdil qabyaaladayn ku tumasho ku takrifal 10 sano ku dhawaad socday oo waqtigeedu dhamaaday uma baahna inay dhagahooda sii maqlaan waxaan ku talinaynaa oo soo jeedinaynaa baaqaas guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee Jubbaland degan aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal guulaysta